بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى بعد شرفت لقد جوجدا وسلامتهم maalintii koowaad noo suurtagashay fasax intii la galay shirka ugu horeeyay ee guddiga joogtada u qabsoomay maanta ayaa soo nimid dadka ka soo qayb galay dhamaantoodan waa salaamantihiin waxaana la dhaaninayay wasiiradii cusbaa iyo xubnihii ka maqnaa guddiga doorashooyinka qaranka marka maartay ujeedada isku yimid sidaas ayuu ahaa waxaan kale marka warbixintii la kala guddiyada soo gudbiyay golaha guddiga joogtada soo gudbiyeen anagoo ka amba qaadayno يعني أرهم آد وحنون بدن وأنت لو سو جديي ومنها جود جودة أو ديجان دي كسر كده جدًا يو لمان يعني ديجان الصوماليات وربحنتي كتمت أو جود أنك رجيسني هم هذي أنا قصة عليني إنه وحن ربا إن باغ جديو جودها أمة الصوماليات وحاد مرتي وحنا نهاي أرهم مرتي دعيدون الشيء يعني ديجان السكية أو دتك الصوماليات ده هذا يعني كسر أسبوعنا ذي ودad badan oo shacab lagu laayay hatta ciidanka qaranka naftarkooda qaar kamid ah lagu laayay oo aad u fooxun arimahaas warbixintooda maanta meesha la keenay waxaan leenahay intii dhamatay Allah uu naxariisto intii dhaawan Allah admiyo laakiin waxaan leenahay arintaas arin aad loogu xumaado anagu aslahayn maartay dagaal sokay Soomaaliya waa ka dhamaaday kaliya waxa dalka ku soo haray argagixisada sidii dal isaga waxreyn lahaa adowga Soomaaliyeed yani kaliya maanta jir inay yihiin argagixisad ayaa la aaminsanaa waxaa bilaabatay maalmaha dibadda soo cusboonatay in shacabka Soomaaliyeed dhaxdooda la isku diro cid isku diraysa ma ogin qaar ma aragtay in hataa kuwaas inay lu kuleeyeen laga yaaba qaar ma aragtay caadafo iyo waxyaalo ma aragtay aan meel ku salaysanayn iyo sheegdaan inuu ka faa'iideysto in ummadda Soomaaliyeed meel kas la isku dilahayo oo ma aragtay maanta geero oo inta gaaraysa muddo aan la arkin inay ka dhacday deegaamada qaarkood sida meel macdaawolay la yiraahdo oo u dhaxaysa xuduudda Soomaaliyeed ma aragtay yani iyo maaragtay kilka shanaad meel u dhaxayso yani meesha laga soo bilaabo ilaa koonfurta laga soo gaarayo waxa la leeyahay gobol Hiiraan intaas isku dishay gobol Hiiraan intaas isku haysata gobol Hiiraan intaas isku haysata iyo ciidanka qaranka qaarkood oo maaragtay yani furmay agtooda markii yani deegaanadooda inay yani intii meel ka tagaan meel ka aadaan dhaxda lagu laayay ay naftarkooda oo waliba sawir xun laga soo duubay waxaas oo dhan ba dalka ka dhacay arintaas aad baan ugu xunnahay waxaan ku baaqaynaa oo ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa dhaqan xumadaas iyo yani arintaas diinta islaamka marka la feeriyay dambiyada ugu xumaa lagu jiro yani dunya waa uran yani khasaara meesha ka muuqato ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa arimahaas in la joojiyo arimahaas yani qof kasta oo Soomaaliyeed oo islaam ah inuu gadaal arintaas ugu xisaabtamo waxa meeshaas ugu jiro ugu iman kara marka arintaas waa arin aad u xun oo ummadda Soomaaliyeed aad ugu xuntahay meel kasta la joogo dadka moraalkiisa dhaawacday bay noqotay waxaan leenahay arimahaas walaalayaal hal la joojiyo dad islaam aan ahay diinteenina arintaas ma ogola dhaqankeena suubana ma ogola yaan anshax xumo iyo dadnam xumo yani waxa la leeyahay Soomaalida waqtigii la islaha wixii waa ka baxday dagaal sokay waa ka baxday dawladnimadeena iyo horumarkeeda bilaabanaya la lahaa hadii aad xabad iyo qabiil iyo kooxo isu dilayno oo waliba la gaarsiiyay qabaa'ilkii labada ilmadeerka aha yani inay isdilaan la gaarsiiyay aad iyo aad aan ugu xunahay arintaas walaalayaal arintaas laga waanubto waxaan kale maaragtay yani runtii maanta meesha ayaan raacay inaan baaq u jeediyo yani hay'adaheena qaabilsan xukuumadda koow ka tahay gudiyadii noo qaabilsanaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta guddiga madax banaan ka mid yahay guddiga baarlamaanka ku jiro arrimahaas qaabilsan iyo xukuumadda waxaan leenahay arintaas in qof kasto waajibaadkii uu lahaa maaragtay inuu ka guto arintaas laga hortago waxay arintaasi keeni doontaa sida haday ku socoto in maaragtay qarannimadii iyo wanaagii horumarka aan falanaynay maaragtay ayadoo waliba laga cabsi qabo roobka aad buu yaraaday taa abaar maaragtay in maaragtay waqti dhow maaragtay yani yaraado sidkii yaraado dad duunya abaar hataa laga cabsi qabo arintaas walaalayaal ha laga digtoonado hay'adaha waajibaadka saaran yahayn deedaal laaban hablaawen fadhiga laga kaco fadhiga la ko badbaadi Soomaaliya loo istaago aad iyo aad u mahadsantihiin salaam